waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda walaalanaha Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay kamid yihiin wasiirro iyo la taliyaal booqashadaasna waxay ka jawaabaysaa booqashadii rasmiga ahayd uu ku tagay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo magaalada Asmara oo kadibna uu u gudbiyay in martiqaad rasmi ah in madaxweyne Afwerki uu ku yimaado magaalada Muqdisho booqashadaasna waxay qaadanaysaa muddo 2 maalmood soo dhaweyn aad u heer sareysa ayaa loo fidiyay madaxweynaha iyo wafdigiisa markaas kadibna waxaa loo soo galbiyay villa Soomaaliya oo ku wada galeen wada hadal labada wafdi iyo labada madaxweyneba haddana marti soorka kadib hadduu ilaa yiraahdo waxay ka wada hadli doonaan xiriirka labada wadan hadda la aasaasay sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada shacbi Eritrea iyo Soomaaliya oo taariikhiga ah sidii Soomaaliya ay ugu soo dhaweetay Eritrea markii ay gobonnimadoonka ahayd sida uga kalmaysayba marka iyo hadda furfurnaanta cusub oo ku timid gobolka Geeska Afrika